guddiga qandaraasya qaranka ee Somaliland ayaa maanta shaaciyay 10 mashruuc waxaana soo xareystay 135 shirkadood munaasabadan oo ka qabsatay xarunta guddiga qandaraasya qaranka waxa goobjooga ka ahaa gudoomiyaha guddiga qandaraasyada mudane Nuux Maxamed Xuseen gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda xubnaha guddiga qandaraasya qaranka shirkadihii soo xareystay marti sharaf leh waxa uu go'reyn halkaasi ka hadlay shirkadahana la wadaagay sida ay mashaariicdan u dhacayaan gudoomiyaha guddiga qandaraasya qaranka mudane Nuux Maxamed Xuseen halkan waxa ku tartamaya 133 shirkadood waxay ku tartamayaan 10 qandaraas waxaanu shirkadaha u ballan qaadaynaa 10 ka qandaraas waxa looga baahan yahay 10 shirkadood 10 ka shirkadood inaan si daahfuran aan u xulan doono natiijadana si daahfuran ay guddidu soo bandhigi doonto ayaanu idin ballan qaadaynaa shirkadaha hadhayna waxaan u rajaynaynaa nasiib wanaagsan waa siyaasadii xukuumadda oo hogaaminayo madaxweynaha qaranka mudane Muuse Bixi Cabdi in dhaqaalaha dalka loo sinaado oo la baahiyo oo loo tartamo geestiisa isaguna waxa halkaas ka hadlay gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda oo mashaariicdan maanta la shaaciyay ay mashruuc ku lahaayeen iyo xubno ka tirsan guddiga qandaraasya qaranka iyo shirkadihii soo xareystay mashaariicdani waxaan rajaynayaa in ilaa shirkadii heshaynay wax tayo leh oo qiimo leh oo dhaxalgal qarankeena iyo ummadaba u noqda ay u dhisto biidnillaahi tacaala waxaan tartamayaa hawlgabka shaqaalaha ayaan tartamayaa insha Allah haddaan helo iyo haddaan waayaba si fiican baan u hambalyeynaya dhismaha diirka muxuu burco marka insha Allah waxaan rajaynaynaa wax khayr qaba cali qamacal telefishinka Home Cable Hargeysa maxaad ka faa'iidaa inaad lacag ku shubato kaarkaaga Somtel haa internet xawaare leh iyo ku hadal muddo dheer ayaad ka faa'iidaa ma ogtahay in intaas in ka badan aad hadda ka faa'iidi karto ma ogtahay inay Somtel bilowday abaalmarino cajiib ah oo ay macaamiisheeda ugu tala gashay waxaa ka mid ah abaalmarinahaas dahab microwave TV-yo iyo moobilo dhammaan shirkadda Samsung ah account lacagi ku jirto oo banka dahabshiil ah dalxiis aad ku degto hoteelada Damal iyo waliba 10 gaari oo Hyundai cusub ah kuwaas oo qaar ka mid ah gaadhayaan qiimo $30,000 intaas iyo xidhmooyin kale oo guud ahaan 5,000 oo abaalmarinood noqonaysa waad ku guuleysan kartaa waxa aad ka mid noqonaysaa liiska tartamayaasha haddii aad ku shubato ku hadal ama aad ku shubato internet ama aad tahay qof ka ganacsada ku shubashada ama aad tahay qof u adeegsada dahab qaab shakhsi ah iyo qaab ganacsi ah ka qaybgal macmiil oo ka mid noqo guuleystayaasha si aad u hesho xog intan ka badan fadlan garaac 333 ama 111